xulka qaranka Soomaaliya ayaa laga badiyay. Soomaaliya ayaa ku jirta kaalmaha ugu hooseeya qiimeynta FIFA. Waa wax ku batay maqalka dhagaha, laakiin ma isweydiisay caqabadaha jira. Horyaalka Soomaaliya ayaa xirnaa muddo badan, waxaana hareeyay khilaaf iyo isqabqabsi jira. Waana wax dhaawac ku ah xulka qaranka. Ciyaartoydii jecleed inay matalaan xulka qaranka ayaana helin fursad ay ku ciyaaraan maadaama uu xirnaa horyaalkii isku soo muujin lahaayeen ama isku soo saari lahaayeen. xulka qaranka waxa ku soo wajahan kulamo iyo tartanno kala duwan, laakiin ma muuqato u diyaarsanaan dhankaas ah. Waxa bilaha soo socda la filayaa in la dheelo isreebka koobka CHAN oo ah tartan loo qabto xulalka Afrika ciyaartoyda ka ciyaarta gudaha horyaalada dalka. waqti badan oo uu xirnaa horyaalka Soomaaliya iyo macalinka qaranka oo aan fadhin, sidoo kalena aan la ogeyn inuu sii joogi doono iyo in kale haddii uu xilka sii hayana aan la ogeyn ciyaartoyda uu soo xulan karo iyo kuwa uu ka tagi karo maadaama horyaaladii ay isku muujin lahaayeen ciyaartoydaasi ay xirnaayeen. waxa ay arrimahan ka mid yihiin dhaawacyada hareeyay xulka qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa niyad jab qaadaya ciyaartoydii jecleed inay xirtaan maaliyadda Ocean Stars si ay u matalaan xulka qaranka. qiimeynta FIFA ee Soomaaliya waxay mar waliba gashaa kaalmaha hoose, waxaana sabab u ah xulkii oo aan ciyaarin kulamo saaxiibtinimo oo ay isugu diyaariyaan tartanada kale oo ay galaan, ayagoo aan helin kulamada saaxiibtinimo ay helaan kuwa dhigooda ama ciyaartoyda dhigooda ee qarnada kale. waxaana ay la soo laabtaan guuldarrooyin waaba haddii ay galaan tartanno waxaana ay la kulmaan ama ay kala kulmaan guuldarrooyinkaas xulal si fiican loo soo carbiyey isla markaana tababar dheeraad ahna soo qaatay soona ciyaaray horyaalada wadannadooda. haddaba arrimahan waxa ay yihiin kuwa ugu horreeya ee na gelinaya ama xulka qaranka gelinaya kaalmaha ugu hooseeya qiimeynta FIFA. waxaas oo dhan oo jira sidee ayaa loo xalin karaa? sidee boogahan aan bogsoon ee ku yaala xulka qaranku loo daweyn karaa? maxay tahay siyaasadda kaga aadan xiriirka horumarinta xulka qaranku? sidee loo abuuraa loona dhisaa qorshe lagu horumarinayo xulka qaranku? waa su'aal ka guuxaysa maskaxda inta xiisaysa horumarka xulka qaranka Soomaaliyeed.